بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن أو وناكسن داوديال إدل كيمبا ميل كستو دونيدا كجوكتان كسو دوادا برامج كارمها سياسة ورقات oo xiliyadan oo kale aynu idin soo gudbino alaaba barnaamijka waxaan ugu soo gudbinaa siyaasadaha ka jira Soomaaliya iyo xogaha qarsoon qodobada maanta aynu idin hayno saaxiibayaal waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay ee gudoomiye Mursal oo shaqadii ka eriyay xubnihii guddiga maaliyadda ee mucaaradka ku ahaa dawladda federaalka magacyada xubnahaas sababta loo ceeriyay iyo kaalintii uu ku lahaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaanu ugu soo gudbin doonaa barnaamijka hadii uu alleedno qodobada kale waxa ka mid noqon doona xilli magaalada Muqdisho ay ka dhacayaan falal ammaan darro ayaa ra'iisul wasaare Khayre fariin adag waxa uu hordhigay wasiirka amniga xog dheeraad ayaanu idin haynaa oo barnaamijkeena kugu soo baahi doonaa waxaad kaloo daawan doontaan maxaad ka ogtahay qorshe ciidamo ka socda dawladda Eritrea ee ku imaanayaan Soomaaliya iyo xilliga ay noqonayso u diyaar garooba daawadayaal qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo aynu idinku soo gudbino barnaamijka insha Allah ku soo dhawow Dilaal abka Dilaal waxa uu ka caawinayaa inaad wax iska iibiso ama aad iibsato adigoo gurigaaga jooga si fudud isaga iibi geli sawirka shayga aad iibinayso geli faahfaahinta shayga aad iibsanayso ku dhufo post la hadal iibsadaha ama iibiyaha adigoo isticmaalaya qaybta wada hadalka lana wadaag sawirro iyo locationka ka dejiso abka Dilaal Google Play Store markale kulanti haboon daawadayaal waa Arbaco 26 bisha 12aad ee sanada 2018 hadii aynu ku bilowno barnaamijka gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ugu dambeyn go'aan waxa uu ka gaaray guddigii maaliyadda baarlamaanka oo muranka badan uu ka dhashay waxaana laga diray guddigaasi xubno muhiim u ahaa Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka dawladda Soomaaliya isbedel ayuu ku sameeyay guddigii maaliyadda baarlamaanka ee khilaafka xooggan uu hareeyay qoraal xalay saqda dhexe ka soo baxay gudoomiye Mursal ayuu ku saaray ama uga saaray xubnaha guddiga qaarkood isagoo kuwa cusub ku soo kordhiyay gudoomiye Mursal ayaa ku sheegay qoraalkiisa sababta ugu weyn ee isbedelka ugu sameeyay guddiga inay tahay iyada oo khilaaf xooggan dhexdooda uu ka jira iyo inuu siiyay fursad isla markaana ay suurto gali waysay inay dhexdooda khilaafka ka jira ay xaliyaan waxa uu sidoo kale Mursal sheegay in xubno ka tirsan guddiga maaliyadda ay muujiyeen inaysan kalsooni ku qabin inay sii wada shaqeeyaan isla markaana khilaafku uu gaaray heer guddigu shaqadooda ay guda waayaan qoraalka Mursal waxa uu sidoo kale u muuqday inuu taageeray go'aankii hore u gaareen ku xigeenadiisa koowaad iyo labaad oo ay ku kala direen guddiga maaliyadda Maxamed Mursal gudoomiyaha golaha shacabka dawladda Soomaaliya oo dalka ka maqnaa marka go'aankan ku xigeenadiisu ay qaadanayeen soo laabashadiisii kadib waxa uu sheegay in guddigaasi shaqadooda ay sii wataan taas oo mar kale cirka gelisay khilaaf ka dhex urtay gudoomiyaha baarlamaanka iyo xukuumadda waxaana ay sababtay in mooshin degdeg madaxweynaha laga keeno isla markaana Mursal uu qabto mooshinkaasi ayaa xal laga gaaray kadib isfahan dhex maray xukuumadda iyo gudoomiye Mursal waxaana ay mar kale arrintu u muuqataa go'aankii oo hore u diiday Mursal inuu markaan qaatay taas oo la xiriirtay xubnaha ugu muhiimsan guddiga ee mucaaradka in meesha laga saaro guddiga maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya oo kiis musuq oo culus hore ugu eedeeyay xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre ayaa halda laga saaray xubnihii ugu mucaaradsanaa ee ka soo horjeeday nabad iyo nolol 18 xubnood ee uu magacaabay gudoomiyaha golaha shacabka 15 kamid ah hore ay u shaqeynayeen waxaana lagu soo daray 3 cusub iyadoo 3 kale meesha laga saaray kuwaas oo kamid ahaa xubnaha sida weyn u mucaaradsan xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre 3 xubnood ee laga saaray guddiga maaliyadda golaha shacabka ayaa waxa ay kala ahaayeen gudoomiyihii guddigaasi علي محمد عثمان ku-xigeenkiisii Maxamed Aadan Macalin iyo xogayihii guud ee guddigaasi xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo si weyn u mucaaradsanaa xukuumadda hogaamiyo ra'iisul wasaare Khayre
sidoo kale xildhibaanadan waxaa la sheegay inay ka mid ahaayeen ama ay horboodayeen mooshinkii laga soo abaabulay madaxweyne farmaajo balse ugu dambeyn fashilka ku dhammaaday. saddexdan xubnood ee laga saaray guddiga maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya, laba ka mid ah si weyn ayay u horboodayeen shaacinta warbixintii musuqa ee muranka badan dhalisay, waxaana ay kala yihiin labadaasi xubnood guddoomiyaha guddigaasi hadda shaqada laga eriyay iyo xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur oo isna ahaa xogayaha guddiga. inkastoo guddoomiye ku-xigeenku uu kasoo horjeestay warbixinta musuqa, haddana lama oga sababta xubnahan laga reebay guddiga loogu daray. sababta keentay in guddiga laga saaro qaar ka mid ah xubnihii saldhig u ahaa shaacinta warbixinta musuqa ayaa ah guul ay gaartay xukuumadda Kheyre, maadaama sida ay sheegeen xildhibaanada qaar markii horeba lagu kala diray go-aan ay soo jeedisay isla xukuumaddu. guddoomiyaha baarlamaanka ayaa xal u arkay in dhammaan madaxda guddiga meesha laga saaro si loo soo celiyo wada shaqeyn xubnaha guddiga maaliyadda. howlo badan ayaa horyaal guddigan uu magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, waxaana ka mid ah inay soo gudbiyaan warbixinada la xiriira xisaab xirka sanadii 2018 iyo keenista miisaaniyadda sanada 2019 maadaama waqtigu uu gabagaba yahay. xukuumadda ayay ku adag tahay isticmaalka qarashaad aan miisaaniyadiisa la dejin, waana sababta keentay in guddigan si degdeg ah isbedel loogu sameeyo. وهجاك داوديال ويل ورقاديا نقل سعطان قيبي هراء برامج كايا نكو قد جرنا iyadoo madooyinkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ay ka dhacayeen falal amni darri oo qaarkood qaraxyo yihiin ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre fariin adag oo la xiriirta amniga waxa uu u dhiibay wasiirka nabadgelyada Soomaaliya. kadib qaraxyadii toddobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa socda baaritaano xoogan oo ku aadan saraakiil sarsare oo fududeeyay arrintan. xog ay heshay warqad waxay sheegaysaa in ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu ku amray wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow in si degdeg ah u soo gudbiyo taliyayaasha ciidamada ee looga shakisay inay si dhow ula shaqeeyaan kooxda shabaab sida aynu ku helnay xogta. Kheyre ayaa sheegay inaan loo dul qaadan karin inay joogto noqdaan falalka amni darre ee ka dhaca magaalada Muqdisho, isla markaana la helo cid lala xisaabtamo oo arrintan mas'uuliyadeeda qaada. Kheyre ayaa laba fariimood u dhiibay wasiirka amniga, waxaana ay kala yihiin inay soo bandhigaan natiijada baaritaanka ay sameeyaan marka ay qaraxyadu dhacaan, isla markaana laga daba tago shakhsiyaadka qaybta ku leh amni darrada Muqdisho. waxa uu ra'iisul wasaaruhu u sheegay sidoo kale wasiirka amniga in la helo cid qaada mas'uuliyadda weerarada dadka shacabka ay ku dhintaan ee ka dhaca magaalada Muqdisho, maadaama arrintan ay noqotay mid joogto ah inta badan aan la helin la xisaabtan dhaba. wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow ayaa ra'iisul wasaaraha ka codsaday inuu siiyo waqti dheeraad ah si ay u sameeyaan baaritaan, isagoo tilmaamay in natiijo dhaba ra'iisul wasaaraha uu la wadaagi doono. markay Muqdisho ka dhacaan qaraxyada dhibaatooyinka badan geysta dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtaa in baaritaan la sameyn doono, ha yeeshee shacabka looma soo bandhigo natiijada ugu dambeysay ee baaritaanadaasi. ra'iisul wasaare Kheyre marar badan ayuu ku celceliyay in xukuumaddiisu ay wax ka qaban doonto amniga magaalada Muqdisho, ha yeeshee weli laguma guuleysan oo way sii socdaan dilalka qorsheysan iyo weerarada dadka badan ay ku dhintaan ee qaraxyada u badan. hagaag daawadayaal warqad ayaad nagala socotaan weli barnaamijka arrimaha siyaasadda ayaynu ku guda jirnaa. dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa wada qorsho markaasi ciidamo Eritrean lagu keenayo dalka. xog gaar ah oo ay heshay warqad waxay sheegaysaa in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu dib u dhigay qorshe ay isla meel dhigeen isaga iyo madaxweynaha Eritrea, taas oo ku aadan in ciidamo Eritrean la keeno Soomaaliya. labada madaxweyne ayaa isla gartay in ciidamo gaar ah oo ka socda dowladda Eritrea ay ka qayb noqdaan sugidda amniga Muqdisho, sidoo kalena saraakiil sarsare ay tababar siiyaan ciidamada dowladda Soomaaliya.
xildhibaano ka tirsan golaha shacabka gaar ahaan kuwa mucaaradka ayaa kashafa arrintan taas ayaana sababtay in dib loo dhigo ciidamadan maadaama xiisad culus oo siyaasadeed ay wajahday dowladdu hogaamiyey maxamed cabdulaahi farmaajo taas oo keentay in xildhibaanada qaar madaxweynaha mooshin ay ka keenaan madaxweynaha Eritrea Asiyaas Afwerki ayaa doonaya in ciidamadiisu ay qayb ka noqdaan ama ay qayb ku yeeshaan rajo soo celinta nabadgelyada Soomaaliya isagoo madaxweynaha Soomaaliya u bandhigay qorshayaal dhowr ah oo lagu xaqiijin karo amniga Soomaaliya taas oo ay qayb ka tahay in shabaab wadahadal lala galo warar aan helnay waxay sheegayaan in sanadkan cusub horaantiisa saraakiil sare oo ka socda dowladda Eritrea ay imaan doonaan Soomaaliya isla markaana ay qiimeyn doonaan ciidamada xoogga dalka waxaana ay furi doonaan tababaro gaar ah oo looga hortago qaraxyada qorsheysan siyaasiyiinta iyo xildhibaanada mucaaradka ee kasoo horjeeda dowladda nabad iyo nolol ayaa ku sheegay qorshaha madaxweyne Farmaajo uu doonayo ciidamo Eritrean inay ku yimaadaan Soomaaliya kuwa u gaar ah isla markaana aysan dani ugu jirin Soomaaliya hayeeshee madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu sheegay dowladdiisa inay ka go'an tahay xaqiijinta amniga iyo kala dambeynta madaxweyne Farmaajo ayaa ku celceliyay in dowladdiisu ay xoogga saari doonto sugidda amniga iyo sidoo kale tayeynta ciidamada xoogga dalka si ay ugu babacdhigaan dhibaatooyinka ay inta badan shabaab geystaan guud ahaan daawadayaal waa naga intaas barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad intaynu mid lamid ku kulmayna haddii uu alla idmo nabadgelyo ku soo dhawow warqaad press haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar siina share garee haddii aad nagu cusub tahayna subscribe saar si aad u hesho muuqaallo cusub fikirkaadana noogu soo gudbi qaybta commentiga aad baad u mahadsantahay